wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Maxamuud Aadan Jaamac ayaa maanta tuulada Cadaadli ku wareejiyay gaari nooca gurmadka degdega ah ee ambalaaska loo yaqaano. Munaasabadda wareejinta gaarigan waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed isuduwayaal wasiiro iyo marti sharaf kale. waxaana wasaaradda caafimaadka ku bogaadiyeen dadaalada ay ugu jirto kor u qaadista adeegyada caafimaadka ee bulshada. wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybe ayaa isaguna halkaasi hadallo kooban ka jeediyay. ambulance ama waa adeeg caafimaad oo gaariya oo aynu halkan ku wareejino wasaaradda caafimaadka anigoo ka wakiila runtii wasaaradda madaxtooyada oo runtii hawshaas suurto gelisay iyo dabcan wasaaradda maaliyadda waxaan jeclahay wasiir dawle inaan nagala wareegto habeenada aad si rasmi ah oo sharci ugu wareejiso degmada Cadaadli oo guddoonkeeda halkan marayo intaasaan doonayaa dhaqdo. gabagabadiina wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa kelmado kooban ka yiri munaasabadii gaarigan lagu wareejinayay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiir Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaal badan u galay gaarigaas sidii loo heli lahaa albaabo badanna garaacay. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasaaradda madaxtooyada iyo maaliyadda oo intuba iyo duulistuba saddexduba way guuleen oo inta isku dareen bay ambulanska degmada Cadaadli u soo qorsheeyeen. insha Allah bidmillaahi kariim hadafka iyaga iyo himiladayada siyaasadeed ee caafimaad waanu gaadhaynaa inaanu laabno tirada gaadiidka degdega ah ee gurmadka caafimaadka ah ee lagu soo wareejiyay. waxaan ku wareejinayaa isuduwaha Maroodi Jeex. geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa magaalada Hargeysa ka furay kulan lagu tababarayaal sii bixiya aqoonta lagula dagaalamo xanuunada ka iman kara abaaraha iyo xilli roobaadka. kulankan waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Khadar Ibraahim Maxamed isaga oo sheegay inay rajeynayaan in kulankan ay ka soo baxaan midho wax ku ool ah oo amuurtaasi si hufan wax looga qabto. sidoo kale waxaa ka hadlay saraakiil ka tirsan hay'adda maalgelinaysa mashruucan. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa hadallo kooban ka jeediyay furitaankii shirkan. idinka waxaa laydin tababaraya sidii luuqad isku mid ama af isku mid ama tilmaan isku mid ummadoo dhan u qaadan lahayd oo dhifan macallimiin iyo dhifan buugaag aynay noqon maxaa la yidhahdaa waxa habka u shaqaynaysa. taasi waxay noo sahlaysaa waxa weeye waajibaad wasaaradda saaran sida wax uga qaban lahayd gacmihii wasaaraddan oo idinka